Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, ugu horreyntii aan ku sallina rasuulka sallallahu calayhi wasallam wacalaa aalihi wa asxaabihi waman ittabaca ilaa yowmiddiin. Walaalayaal, waxaan jeclaystay inaan ka hadlo nasteexooyin ku saabsan sidii aan u dadaali lahayn maadaama adduunkii dhan saan ognahayba uu ku faafayo xanuunkii corona oo meel kastana gaaray, maalin kastana kumaan qof ay dhimanayaan. Ilaahay inta dhimatay ha u naxariisto, inta xanuunku hayana allaha ka dulqaadee. Saad ogtihiin annaka wadankeena dadka waa dad oo badankooda aad daciif ay u yihiin, waayo waxaa ku yar sida waxyaabaha kalsiyonka, difaac badan ma haystaan. Marka waxyaabaha aan uga hortagi lahayn sidaan difaaceena oo kale u badin lahayn iyo tacliimaadka aan raaci lahayn inaan wax yar ka hadlo ayaan jeclaystay oo idinla wadaago idinka oo iga raali ahaanaya. Walaalayaal, saad ogtihiinba xanuunkan corona Ilaahay ha naga qabto annaga iyo muslimiinta dhammaan idil. Adduunka dhan wuxuu ku sameeyey fajac iyo argagax, adduunkii oo dhan, caalamka dhan maalin walba intaas oo kun oo qof buu ku dhacayaa, intaas oo kun oo qof baana dhimanaysa. Allitiisa ayaa loo dhintaa, laakiin kolley wax walba asbaab bay leeyihiin. Ilaaha subxaanahu wa tacaala wax kasta uu keeno, ama wabaa ha ahaato ama kheyr ha ahaatee, xigmad buu uga dan leeyahay. Wuxuu ku fiirinayaa sabarkeena sidaan u sabreyno. Marka Ilaahay naga dhigo kuwa ku sabra cinda shiddaa, allana xanuunkan ha naga dulqaado biidni raxmaan. Ilaahayna ma keeno wabaa iyo xanuun ilaa raxmadiisa ayuu ku rafacaa oo dadka uga dulqaadaa. Marka walaalayaal, aan ku dadaalno istighfaarta, alla bariga, Ilaahay aan barino in badan, ducada alle ilaa raxmaanka markaan barino muslimiinana alla wuu naga aqbalaa ducadeena. Ilaahay raxmadiisu waa waasic, kulli shay way ka waasic noqota, aaday u ballaaran tahay. Marka allah raxmaanka i baryo dhahay waa idinka ajiibayaa. Marka waa inaan Ilaahay barino isku xirno, istighfaarta waa inaan badino, adkaarta sabaax wal masaa waa inaan akhrino, adkaarta subaxii iyo galabtii. Qofka adkaarta akhrista Ilaahay wuu xifdiyaa. Marka waa inaan caruurteennana aan barno adkaarin subax iyo ducada subax iyo ducada galabta annakana aan barano, kadibna aan ku dhaqanno si ilaah raxmaanka uu noo xifdiyo. Qur-aanka kariimka akhriskiisa waa in aan ku dadaalno oo macnaha aan qur-aanka akhrino, sababta oo ah qur-aanka kariimka qalbiga ayuu nadiifiyaa, waa shifaa. Ilaahay baa wuxuu nooga dhigay daawo. Marka qur-aanka akhriskiisa haddaan awoodno waa inaan xifdino, haddaanan awoodin waa inaan akhrino. Intaad ka awoodid akhri, guriga u daar. Haddaadan akhrin karin, guriga u daar. Muslim baa tahay, waad akhrin kartaa qur-aanka alle. Kuwa akhriya oo nooleeya oo xifdiya Ilaahay ha naga dhigo. Laakiin waa inaan ku dadaalno, wax walba asbaab bay leeyihiin. Qur-aanka kariimka akhriskiisa waa inaan ku dadaalno. Hadda ka hor wiil baa wuxuu weydiiyey nin baa shiikha wuxuu sameyn jiray qur-aanka uu akhrin jiray. Qur-aanka muusan xafidsanayn, laakiin wuu akhrin jiray. Iga raali ahaada hadduu fiidiyowgu dheeraado. Qur-aanka buu akhrin jiray. Wiilkiisa la yaabo wuxuu dhahay, aabbow, qur-aanka waad akhridaa mana xifdsanidi, faa'iidada ku jirta maxaa waaye? Ayuu dhahay, hadaadan xifdinayn oo akhrinaysaa. Wuxuu u dhiibay wiilkii salad buu u dhiibay oo dhuxul ku jirto oo wasakh miirana oo dhuxusha ay kusoo guran jireen. Wuxuu dhahay, orod aabe, saladan qaado, badda biyo iiga keen. Cunugii saladii biyuu galiyey, salada way dalooshaa. Saa ogtihiinba cawsay ka samaysan tahay, biyihii way ka daateen, way maran tahay. Aabe ma keenaysa biyuu dhahay. Wuu ku celceliyay dhowr jeer. Markaasuu dhahay, aabe aniga ay dhibin, markii dambe bahashaan biyo ma soo qaadi karto. Markaa wuxuu dhahay, laakiin aabe dhahay, waxba ma dareentay ama wax ma laaxastay, wax ma aragtay buu dhahay inta aad biyahan bahashi gelinaysay? Haa buu dhahay, aabe saladan wasakhay ahayd uu dhahay, laakiin hadda waxay noqotay nadiif. Wuxuu dhahay, aabe sida
uu salada u nadiif garooday ayaa qur-aanku qalbigayga u nadiifinayaa. Marka sidaa darteed ayaan qur-aanka u akhrinayaa buu dhahay. Marka walaal waxaan intaa usoo qaatay idinkoo iga raali ahaanaya qur-aanka alle nafteydana waan u dardaarmaya, nafteydana u dardaarma inaan ku dadaalno saan u akhrin lahayn, waxaan awoodnana aan ka xifdino, walow kaana aayad ha ahaado, safxad ha ahaado, juz ha ahaado, rubuc ha ahaado. yacni qur-aanka waa inuu saaxiibkeena ahaado. bil barakaysanna waan gelaynaaba. marka waa kaas intaas sidaan uga gudbo. ilaahay ha naga dhigo kuwa qur-aanka xifdiya kuna dadaala kitaabkoodana gacanta midigta ka qabsada. walaalayaal alle aan tala saarano, waman yatawakal cala allah fa huwa xasbuh. ilaahay haddaan tala saarano allaha raxmaanka asaga ayaa na ilaalinaya, meel min xaysu laa naxtasibna wuu naga irsaaqayaa. marka ile aan isku xirno. tan kaleeto istikfaarta aan badino. qofka hadduu istikfaarta badiyo allaha raxmaanka wuu u naxariisanaa. marka ilaahay hanoo naxariisto, markasta ducaysta, islaamka dhanna u duceeya. marka walaalayaal tan kale tacliimaadka waa inaan raacno, oo macnaha waxyaabaha oo la dhahay ha looga hortago xanuunkan maadaama uusan daawo lahayn. waxaa waaye alwiqaayatu khayru min alcilaaj baa la dhahay. inuu qofku uu dadaalo oo waxa saxa uu sameeyo, cilaaga way ka khayr badan tahay. marka waxaa waaye waxyaabaha looga hortagayo iyo tacliimaadka waa inaan raacno. awal xaaga hadda ugu horreyntii horta waa inaan bixin intaan awoodno guryaheena, waa inaan ku sugnaano. sababta aan guryaheena ugu sugnaanaynana waxaa waaye fayraska dadka banaanka jooga. waxaa laga yaabaa inaa qof fayras qaba ama aad la kulantid ama aad salaantid ama adina uu kusoo raaco. wax walba waa qadar alle, laakiin allaha raxmaanka daruura noo baneeyay. waxaa la dhaha wax walbaba sababay leeyihiin. marka waa inaan raacno tacliimaadka. yacni markaa bixaysid galoofyo xiro, sanka xiro, bahashan la isku buufinayo kuxuulka la dhaho jeebka gasho, markasta isku buufi. yacni gaariga hadaa gaari wadata ku buufi, ansaseerka markaa raacaysid ku buufi, markaa wax taabatid isaga buufi. yacni wiqaaya sameynaysaa. marka qofku dadaal samee, waa inaad dadaal sameysid. tan labaad waa inaad waxyaabo difaacaaga siyaadisa aad cuntid, sida masalan sida liintan oo kale. marsan liin bambeelmo inaad cuntid, liin dhanaanta cuntada waa inaad ku darsatid. gansabiilka masalan waad cabi kartaa sida shaahi biyo kulul, gansabiilaa tumeysa, waxaa ku daree shaaha ku darsanay. shaaha xataa faa'iido saasa ma lahan. gansabiilka oo keligiisa haddaa ka samaysatid shaah oo malab ku darsatid iyo liin dhanaan waa enaf, aaday u fiican tahay. gansabiishu waxyaabaha difaaca oo dhisa ay ka mid tahay. maxaa la dhahaa saytuunka oo kaleeto wuu fiican yahay. fitamiin c-ga jirka ayuu soo dhisaa, power buu ku siinaa, awood ku siinayaa. fitamiino kale haddaa awoodid in fitamiin oo ku anfacaya waa inaad cuntid. nadaafadda markasta waa inaad faraha dhaqatid. qudaarta iyo waxa aad banaanka kasoo gadanaysid wax walbaba ha ahaadeen, bahal oo caagagan biifta dhahaya aad waxaad ku shubaysaa kaloor iyo khal iyo biyo, waa isku ruxaysaa, guriga ayaad ku buufinaysaa. waxaad kusoo masaxaysaa miiska, daaqadaha, meel kasta subaxii waa kusoo nadiifinay. caag kaloo yaryar waxaad ku shubanaysaa, khal baa ku shubaysaa iyo biyo isku daray, waa isku ruxaysaa. qudaarta soo gadatay waa ku buufinay, waa iska tirtiraysaa. waxaa ku tirtiraysaa warqadda oo loogu talagalay jikada ama istiraashaba ha ahaato. markaas kadib baa dhaqaysaa, kadibna khal aa ku dhaqaysaa iyo biyo. markaas wax walba nadiif bay noqdeen. allaha raxmaanka ayaa wax walba naga haya. marka aan asbaabtiisa waa inaan raacno. ilaahay taxadar buu ku dhahay, taxadar calaa nafsi. marka waa inaad ilmahaaga iyo naftaadaba ka taxadartid. dadka waaweyn waa inaan ka taxadarno, aan intaan baxno aan fayraska u keenin. sababtoo ah ayaga way u sahlantahay inuu xanuunku uu si degdega ugu dhaco. sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay sokor qabaan, dhiigkar qabaan, xanuuno kala qabaan. marka dadka waaweynna waa in aan la taxaadno oo waxyaabaha keenaya waxyaabahaas oo dhan aan ka fogeyno, banaanka inaysan u bixinin. tacliimaadka dhan oo dowladdu ay sheegto dhahday hala raaco waa inaan raacno. ilaahay allah raxmaanka waa inaan barno, isku xirno,
waa ogtihiin dadkeena waa dad aad iyo aad u tabar daran, markaas calcium ma haystaan, difaacooda wuu yar yahay. marka waxaa waaye waa inaan waxyaabaha difaaca soo dhisa aan cunno, nadaafadana aan ku dadaalno, aanan raacno tacliimaadka sax, allana aan barino. allah raxmaanka waxaan ka rajeynayaa inuu xanuunka naga dulqaado, isaga awood leh. annaga iyo muslimiinta meel kasta aan joogno ilaahay hana xifdiyo, qulubtana allaha noo daahiriyo, ilaahayna muslimiin khaalisa hanaga dhigo. allah raxmaanka hana xifdiyo, markasta istighfaarta ku dadaala, alla isku xira, xanuunkana ilaahay aan ka tala saarano. waman yatawakkal cala allah fahuwa xasbuhu. alla raxmaana kuwii tala saarta ilaahay hanaga dhigo, muslim khaalisana ilaahay hanaga dhigo, xanuunkana allaha naga dulqaado annaga iyo muslimiinta dhan. ilaahay bil ramadaan oo barakeysanaa soo socoto, haddana shacbaan oo bil barakeysanaan ku jirnaa. marka ducada badi, ducada suma duco, istighfaarta, alla raxmaan aan u noqono, rasuulka sallallahu calayhi wasallam aan ku salina daa'iman. ilaahayna muslim khaalis hanaga dhigo, aanan isjeclaano, walaalo isku xiran aan noqono. qof walbaba qofka kaleeto waxaa la galay iqtisaadka, dhaqaalihii adduunka hoos buu u dhacay, dad masaakiina ka buuxa adduunka dhan. marka waxaa waaye walaalihiina miskiinka qofka awooda ha saacideeyo, kii aan awoodin kelmad wanaagsan hadha. waxaa dhahay kelimada dayiba qalbigay u roontahay. marka waxaa waaye sadaqana waa ka helaysaa. marka ilaahay hanaga dhigo muslim khaalisa. walaalayaal iga raalli ahaada, intaasaan jeclaystay inaan idinla wadaago insha allah. allana waxaan idinkaga baryayaa, allana waxaan nooga baryayaa inuu naga dhigo muslimiin khaalisa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.